እየተሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። በአብዛኛው እኛ ከተሞቻችን እየተከታተሉ እርምጃ የሚወሰድባቸው ጊዜያት አሉ። መድረስ ካልቻለ መስጠት እየቻለ ዝም ብሎ ህጉን ጠበቅ አድርገን ያዘው ግንዛቤ በደንብ ሳናስብ ጠበቅ አድርገን ሰላሙን ምን الله عليكم ዳወዲያል ኩላንቲ ወአን ወነክሰን መልክስቲ ከስቶን ወላቻን ቃይሳን በወሐምድ الله የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በየዘርፉ ያሉ ባለድርሻዎች በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ጋራሃን ላይ ተሳተፈ ሶማሊያ ሐሩፍ አዲስ አበባ አሁን ወደ ሰዓቱ የስፖርት ዘገባችን እናልፋለን። ሶስተኛው ሀገር አቀፍ የታዳጊ ወጣቶች ምዘና ውድድር በአዳማ ከተማ ተጀምሯል። የምዘና ውድድሩ مشروع ترين كاديس أبابا يدون لي يا بقولك بسديتن يتضرب للسوق بالجبية يضرب بشدة كنت يفوز نقصها السنة تشابدي صلى بالله بدونه فالله دور كاسنا وحنو قدر لجوريها يا عبد الرحمن عبد الله wadada tareenka ee Addis Ababa iyo Djibouti gaar ahaan mashruuca Addis Ababa ee Dawanle ayaa hawsha shaqadiisa waxa ay bilaaban doontaa bishan taqinta ee fooda inagu soo haysa hawshan oo ah mid tijaabo ah ayaa waxa la filayaa inay sida ugu dhaqsaha badan bisha taqinta ay u bilaabato tareenkan oo ku shaqayn doona qalabka elektriga ayaa waxa hawsha dhinaca engineeringiga ku howlan wakaalada biraha iyo injineeriyada ee dawladda federaalka Itoobiya ku xigeenka dhinaca logistiga iyo adeegga ee wakaalada oo warramaya wakaalada wararka ee Major Kifto Kaytum ayaa waxa uu sheegay in 130 container oo ah qalabka lagu fulinayo hawshan tareenka ay soo gaadhay magaalada Dirraba waxaana la dhameystiray ayuu yiri mas'uulku qabanqaabadii la xiriiray in lagu rakibo qalabka tareenka mas'uulka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu yahay mid casri ah oo ku cusub wadanka uuna yahay qalab loo baahnaa in tareenka casriga ah ee haatan laga hirgelinayo dalka lagu fuliyo waxaana uu dhinaca kale ka warramay mas'uulku in tababaro la siiyay xirfadlayaasha ku howlan shaqada tareenka casriga ah isaga oo sheegay in dhawaantan ay soo gaari doonto dalka 400 oo ah furarka dambe ee tareenka waxaana haatan la soo gabagabeeyay ayuu yiri mashruucan isku xirka rakibaadda furarka tareenka intii ugu badnayd tiknoolajiyadan cusub ee la keenay wadanka ka sokow waxaa fursado shaqo ka helay mashruucan in ka badan 234 muwaadiniin ah oo haatan ka hor aan shaqo haysanin dhinaca kale shaqaalihii hore ee shirkadda tareenka ee Ethiopia iyo Djibouti ayaa iyaguna loo soo wareeyay hawsha fulinta shaqadan waxaana suurtagal noqotay in tooda u gudbiyaan dhalinta cusub ee maanta ku howlan horumarka ka socda dalka shaqaalihii hore ee tareenka Ethiopia iyo Djibouti oo u warramaya wakaalada wararka ee ayaa sheegay in aqoontooda ay u gudbinayaan dhalinta cusub waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin hawshan cusub ee haatan ay fulinayaan gabagabadii mashruucan tareenka ee Addis Ababa iyo Dawanle ayaa waxa la dhameystiray 87% waxaana ku baxaysa mashruucani adduun dhan $4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah